xogayaha guud ee jabhadda Onolof Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada Jigjiga ayaa ka hadlay mowqifka jabhadda Onolof isagoona cadeeyay in laga bilaabo maanta ay jabhaddu isku bedeshay xisbi waxaana uu sheegay xogayuhu inuu xisbigu adeegsanayo waddan nabadeed isla markaana ay dabiqi doonaan xeerarka caalamka iyo dastuurka Itoobiya. waxay maanta si rasmi ah u cadeynaysaa inay noqon doonto xisbi siyaasi ah oo si nabadgelyo uga halgami doona sidii ummadda Soomaaliyeed ee dalkan ay ayahooda uga tashan lahayd iyadoo adeegsanaysa waddan nabadeed oo waafaqsan xeerarka caalamka iyo dastuurka Itoobiya waxayna ka qaybgeli doontaa doorashooyinka 2020 doorashadaas waxay ku geli doontaa magaca ONLF waxayna dawlad ku dhisi doontaa isbahaysiga xorta ee Soomaaliyeed oo afka qalaad u dhigma Free Somali Coalition. isbahaysigaas wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan iyadoo shirweyne la qaban doono sida ugu degdeg badan isbahaysigaas lagu dhisi doono. isbahaysigaas waxaa looga mid noqon doonaa xisbiye diiwaan gashan oo doorashooyinka ka qaybgala kuraasna ku guuleysta. waxaa kaloo u furan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan inay magaca ONLF ku biiraan si ay u helaan fursadaha ay danahooda ku ilaashan lahaayeen. ONLF haddii ay doorashada ku guuleysato waxay tixgelin gooni ah siin doontaa beelaha laga awoodda badan yahay oo fursad aan u helin inay xaqooda helaan ama si xaqdarro ah loo takooro. xogayaha guud ee jabhadda Onolof waxa uu soo kala sheegay inay ka shaqeyn doonaan xuquuqda siyaasadda shacabka dowlad deegaanka oo uu sheegay inaanay wali helin isla markaana ay shacabku aanay dooran karin si xor ah musharaxa ay doonayaan ku salaysnaadaan in magaalooyinka kaliya aan noqonay dadka reer guuraaga xuquuqdooda la ilaaliyo oo ay helaan adeega xaq ugu leeyihiin maadaama dadka ay u badan yihiin oo ay ka qayb galaan siyaasadda iyo maamulka dalka nolosha iyo noqdaan barnaamijyo u gaar ah loo diyaariyo oo awoodda iyo dhaqaalaha dalka uusan ku koobnaan magaalooyinka iyo caasimadaha oo ay u daadegto ilaa tuulada. sidoo kale jabhadda waddanka xoreynta ogaadeen waxay xooga saari doontaa inay cilaaqaad fiican ay dadka Soomaaliyeed la yeeshaan darisyadooda. deegaanada Soomaaliyeed wuxuu leeyahay xad aad u ballaaran oo ay degan yihiin ay wadaagaan dadyo kala duwan dad walaalada Soomaaliya oo xagga bariga ka xiga qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda Cafarta. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Ariel TV, Burco.